bandhiga barnaamij wax iftiimiya. waxa uu ahaa koob loogu magac daray xulka caasimadda oo ay ka soo qayb galeen 16 kooxood oo 14 kooxood ka dhisnaayeen caasimadda martigelisay koobka waa Hargeysa labada kooxood ee kalena ay ka socdeen magaalada Gabiley. waa koob lagu soo dhaliyay 86 gool xilli wareegii afar dhamaadka iska xaadiriyeen kooxaha Hooyo Store, Carwo Dhamays, Carwo Sadaam iyo Kirix Restaurant. koobka xulka caasimadda waxaa la daafuray 9kii bishii Rabiicu Taani 1441 Hijriyada waa galabnimo Jimcaha waxaana la soo gabagabeeyay 22kii Jamaadul Awwal 1441 isla galabnimo Jimcaha. muddadaasi 29 maalmood ee uu koobku socday waxaa goolal soo dhaliyay 52 ciyaartoy oo ka kala metelayay 16 kooxood ee ka qayb gashay koobkii xulka caasimadda garoonka dhalinta degmada Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa. koobkii xulka caasimadda wareegiisa koobaad waxaa lagu soo dhaliyay 16 gool, wareegii labaad waxaa lagu soo dhaliyay 24 gool, wareegii saddexaad waxaa lagu soo dhaliyay 26 gool, wareegii siddeedamaadka waxaa lagu soo dhaliyay 8 gool, wareegii afar dhamaadka waxaa lagu soo dhaliyay 8 gool, iyadoo maalintii u dambeysay koobka xulka caasimadda lagu soo dhaliyay 4 gool. wareegii siddeedamaadka waxaa iskugu soo hadhay kooxaha Carwo Dhamays, Hargeysa Sports, Mash Technology, Kirix Restaurant, Cilmi Store, Hooyo Store, Carwo Sadaam iyo waliba Nuux Construction. waxaana aakhirkii wareega afar dhamaadka iskugu soo hadhay kooxaha Kirix Restaurant, Carwo Sadaam, Hooyo Store iyo waliba kooxda Carwo Dhamays. markan waa galabnimo Jimcaha waana 22 Jamaadul Awwal 1441 waxaa final isugu yimid kooxaha Carwo Dhamays iyo Kirix Restaurant. soo dhaweyn u kicitaan heesta caalanka marti sharaf waliba dadweynihii ugu badnaa ee ka soo qayb gala kulanka finalaha iyo 62 daqiiqo oo si toos ah loo daawaday ciyaarta finalka isla markaana lagu kala baxay barbaro 2-2 ah. waxaa loo gudbay qaybta goolkulaagyada waxaana goolkulaagyaal 8 ah ku soo badisay kuna soo baxday kooxda Kirix Restaurant sidaana ku qaaday koobkii muddada 29 cisho ka soconay garoonka dhalinta degmada Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa. koobkii xulka caasimadda 29 maalmood ee uu socday waxaa 17 maalmood soo dhexdhexaadiyay Yuusuf Losila Yoguntum oo u dhashay wadanka Uganda. waxaa sidoo kale 11 maalmood dhexdhexaadiye ka soo noqday Cabdiqaadir Ilka Case. waxaa xusid mudan in maalin kaliya uu dhexdhexaadiye ka noqday Cabdicasiis oo ka mid ah dhexdhexaadiyaasha garoomada magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil sida weyn looga yaqaano. markan waa xilli habeenimo ah waana Hotel Safari goobta waxaa la qabtay xaflad lagu maamuusayay kooxihii loo gartay inay wacdara ka dhigeen tartanka xulka caasimadda. waxaa ka soo qayb galay xafladda ciyaartoyda labadii kooxood ee final isugu yimid ee kaalinta koobaad iyo labaad ka galay tartanka. ciyaartoyda caasimadda ku dhaqan qaarkood marti sharaf ku suntan saaxadda kubadda cagta iyadoo xafladdaasina ay ku soo idlaatay jawi qurux badan. koobkii xulka caasimadda wuxuu noqon doonaa koob loo diiwaan geliyay ciyaartoygii ugu goolasha badnaa inuu ahaa Caydaruus Cali Cabdilaahi Caydaruus Cayto oo ka tirsanaa kooxda Carwo Sadaam isla markaana ku soo dhaliyay guud ahaan tartanka 9 gool. kaalinta labaad guud ahaan gooldhalinta waxaa soo galay waa Sharmaake Maxamed Gaaxnuug Sharmaake Tom oo soo dhaliyay 5 gool kana tirsanaa kooxda kaalinta labaad tartanka ka gashay ee Carwo Dhamays. haddaba daawada maxaad ku xasuusan doontaa koobka xulka caasimadda garoonka dhalinta degmada Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa?